قصة bulshada Soomaaliyeed inaan hor keeno xasan sheekh oo aqbalay madaxweyne Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynihii Jubbaland waana muuqataa wayna dhacaysaa maxay ku hadli doonaan qolada durbaanka qabiil loo dhiibay ee la yiri niyu Jubbaland baa la idin dhisaya hadafka adag go'aanka adag iyo isku kalsoonaanshaha wuxuu keenaa guul qodobkayga koowaad ee barnaamijka arrinta Jubbaland ayaan ku falaqay doonaa hadduu Allah idmo saacadii ugu dambeeyay waxaan arkayay dad farqaha haysta ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya musharax madaxweyne mudane Xasan Cali Khayre xasan cali khayre laba sano muddo xileeda ayuu xasan sheekh u ogol yahay xasan sheekh u ogolaaday muddo kororsiin uu qaato khayre waa laaluush qaate khayre laaluusha la siiyay 5 milyan ka bilaabanaya sababta loo xagxaganayo oo looga been abuurayo xasan cali khayre ma taqaana waa siyaasiga kaliya hawiye ee looga cabsi qabo in uu xasan sheekh bedelo waa murusade waxa la diidan yahay murusade inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya waxa looga daba ordaya waa miisaanka siyaasadeed uu leeyahay waa awoodda siyaasadeed uu leeyahay waa inuu wax kala furfuri karo waxna kala xirxiri karo waa ninka kaliya xasan sheekh maxamuud jilbaha dhulka ugu dhufan karo waana siyaasiga kaliya hotel jasiira ku jira ma jiro nin maanta labida mudane xasan cali khayre markii loo eego miisaanka mucaaradka muqdisho hadduu muddo kororsi xasan cali khayre uu qaadanayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo taagan kama uusan hor imaan lahayn ninkii ka diiday farmaajo muddo kordhin ayaa xasan sheekh ka aqbalaya waxay ka mid tahay kuwa aan aqliga u saaxiibka ahayn waxyaabaha ay baraha bulshada la ordayaan ninku tol male murusadu ka dhashay murusadana maanta baraha bulshada iyo goobaha meediyaha ee inta badan muhiimad ma saaraan laakiin murusada fariinan u diri doonaa waxa loo haysto xasan cali khayre waa waxa tahay murusada haddii uu jiro qof murusada oo damiir leh bal muuqaalkan iga gaarsiiya qodobkayga saddexaad ee barnaamijkana waxaan ku falanqayn doonaa qoladii siyaasiyiinta sheeganayay ee xasan sheekh u shaqaynayay ee xasan shire abgaal uu ka mid yahay ee reer Puntland ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxay baraha bulshada soo dhigayeen waxaan dhisaynaa new Puntland waxaan burburinaynaa Puntland ta dhisan bal xasan shire abgaal iyo kooxdiisana waan ka hadli doonaa saddexdaasi qodob ayaa miiska ii saaran muuqaalkan waxaad ka daawanaysaa Facebook page-ka Cabdullaahi Balwaan haddii aad ku cusub tahay page-ka waxaan ka codsanayaa inaad soo follow garayso si aad uga mid noqoto saaxiibada ku xiran page-kayga Facebook Cabdullaahi Balwaan sidoo kale muuqaalkan waxaad ka daawanaysaa YouTube-ka Cabdullaahi Balwaan waa YouTube channel oo aad mar walba kala socon karto barnaamijyada aan baahiyo soo dhawaada dhamaantiin aan ku bilaabo Jubbaland tartan adag ayaa naga dhaxeeyay koox laba qaybood ah qayb qabyaalad looga faa'iideystay oo cuqdad ogaadeen qaba iyo qolo baahan oo lacag lagu shubto waxaan ku tartanay niyu Jubbaland buu xasan dhisaya iyo ma dhisi karo waxay aniga igu tilmaamayeen in aanan Axmed Madoobe meel aan gaarsiin karin oo waliba taageeridda aan Axmed Madoobe garab istaagay guul darro ay ku dhamaan doonto qoladaas waxaan leeyahay hadda aniga iyo idinka yaa adkaaday madaxweyne xasan sheekh oo kobaha afka ku sida ayaa kismaayo tagi doona mar labaad dadweynaha daawanaya barnaamijkan waxaan rabaa inaan u sharaxo cidda guuleysatay iyo cidda laga guuleystay waxa lagu kala ogaan karaa ma Axmed Madoobe diyaarad ka raacay kismaayo oo muqdisho xasan sheekh ugu tagay mase xasan sheekh diyaarad muqdisho ka qaadanay oo mar labaad kismaayo tagay haddii Axmed Madoobe muqdisho tago Axmed Madoobe laga adkaaday haddii xasan sheekh uu kismaayo tagana xasan sheekh baa laga adkaaday horta fahma cidda la baryayo waa cidda loogu tago fadhiga haddii ninkan Axmed Madoobe uu muqdisho tago uu madaxtooyada tago waxaan dhihi karnaa Axmed ay isdiibay dadka qaar hadda waxay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh uu madaxa u dhigtayo wax kasta waa ka taraasulayo xasan sheekh uu isku dhiibay war haddii xasan sheekh maanta la isku dhiibayo Axmed baa ku qasbanaa lahaa inuu muqdisho tago farta lagu yeeri lahaa fart sida qorqor cali guudlaawo iyo lafta gareen oo kale farta lagu yeeraa Axmedna farta lagu yeeri lahaa haddii Axmed Madoobe laga adkaan lahaa Axmed Madoobe muqdisho tagi lahaa farta lagu yeeri lahaa laakiin Axmed Madoobe laga adkaaday Axmed Madoobe kismaayo loogu tagayaa iswaafajiya madaxweyne xasan sheekh oo kobaha afka ku sida
ayaa kismaayo tegaya wax walibana uu seexaya shuruud la'aan axmed maxamed islaam 5 sano oo ka bilaaba doonta bishan ayuu horta jubbaland sii joogi doonaa sanadkii uu xasan sheekh diidanaa axmed maxamed islaam inuu yahay madaxweynihii jubbaland waa 25 November 2024 ilaa 25 November 2025 carqalado ayuu ku jiray madaxweyne axmed madoobe loo xisaabi maayo waa 5 sano oo cusub oo hadda bilaabanaysa wuxuu saxiixi doonaa dhammaan shuruudaha jubbaland 100% isagoo waliba qasban waxaan rabaa marka dadku inay fahmaan cidda laga adkaado waa cidda dhaqaaqda oo fadhiga ugu tagta qofka ay awoodda ay looga qaado macnaha qofka ka adkaaday fadhiga ugu tagta sida xasan sheekh uu Kismaayo u tagay 6 bishan sida uu xasan sheekh ugu laabanayo magaalada Kismaayo horta libinta iyo guusha waa taas axmed maxamed islaam waa nin yaqaana qaabka loo dagaalamo qof kasta wuu dareemi karaa duulaan kastoo axmed madoobe lagu qaado in axmed uu guuleysaday qiil mala waxba qiil ha ka dhiganin waxaan jirin iyo waliba riwaayad aan dhaqaaqayn ama aan shaqaynayn axmed maxamed islaam guushiisa waxay ku timid waa power iyo kalsooni dadkiisa iyo waliba siyaasaddiisa uu ku qabo qolada new jubbaland marka soo idiima sheegin inaan ka adkaan doono soo idiima sheegin waligayba waa ku adkaysan jiray maantana waa ku adkaysanaya anigu waxaan ahay qof reer jubbaland axmed maxamed islaamna waxaan u ahay garab iyo gaashaan waxaan ku kalsoonaa inaan ka adkaan doono habeenka xalay ayaa tagay bay ahayd in new jubbaland aad geysaan garbaharey waana ka adkaaday haddaad shalay tiraahdeen xas ee axmed madoobo taageeridda cabdullaahi balwaan meel kuma gaarsiin doonto maanta ayuu libin joogaa waana kaas waa madaxweynihii jubbaland maxaad ka bedeli kartaa madaxweyne xasan sheekh tegitaankiisa labaad ee kismaayo dhammaan shuruudihii jubbaland ayuu dhammaystiri doonaa wuxuu meesha ka saari doonaa wixii loogu yeerayay new jubbaland meeshaas waa guli iyo gobonnimo wixii soo kordha ilaa iyo daqiiqadan iyo wixii ka bilowda insha Allah waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda oo aad ka daawan doonto Facebook-kayga page Cabdullaahi Balwaan ama YouTube-kayga Cabdullaahi Balwaan insha Allah waxaan arkayay rag xagxaganaya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane xasan cali khayre musharax madaxweyne oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa la yiri waa laaluush qaate muddo kororsigii xasan sheekh maxamuud uu taageeray lacag 5 milyan oo laaluush uu qaatay ninku waa ka xasan cali khayre sababta loo haysto ayaa horta ii muhiim ah inta aanan sheegin bal arrintaasi inay been tahay xasan cali khayre waxa loo haystaa waa ninka kaliya ee hawiye ee bedeli kara madaxweyne xasan sheekh maxamuud sababta loo haysto xasan cali khayre waa aqoonyahan dhammaystiran ee jilbaha dhulka ugu dhuftay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ninka kaliya uu xasan sheekh maxamuud uu iska ilaali jiray waa xasan cali khayre wuxuu ka horeeyaa boqolaal musharaxiina oo Soomaaliyeed wuxuu ka horeeyaa musharaxiinta maanta hotel jasiira la jooga mudane xasan cali khayre hadduu muddo kororsi aqbalayo madaxweyne farmaajo kama diidi lahayn ee waxa loo haysto waxa tahay mursade dadka uu ka dhashay beesha mursade waa dad aan warbaahinta inta badan aanan waqti siin waxaan rabaa markii inaad iga gaarsiisaan maanta xasan cali khayre qabiil baa ku dhagan qabiil baa haysta waxaana la leeyahay naga reeba ninku dee waa nin saameyntiisa laho berri waxaa laga yaabaa doorashada 2026 hawiye kaloo maanta qaban kara kursigan in la waayo xasan cali khayrena maxaad mursado u tahay ayaa horta loo haystaa taageerayaasha xasan cali khayre beesha mursado kaliya maaha shacabka Soomaaliyeed oo dhan taageersan laakiin nin aan tulkiisu garab taagnayn mar kastaba libinta waa laga xiraa mursado indhaha kala fura ninka xasan cali khayre magiciina loo haystaa maxaad mursado u tahay ayaa maanta looga been abuuraya maxaad mursado u noqotay ayaa maanta farqaha loo haystaa waliba loogu diidan yahay libinta siyaasadeed ee tartanka 2026 iyo doorashada madaxweyne xasan cali khayre iyo muddo kororsi uma baahna in aan faalo kala ka bixiyo waa ninkii golaha wasiirada xukuumaddiisii waqtigii farmaajo waa ninkii fagaare la yimid oo yiri muddo kororsi maya dalku doorasho aadaya
farmaajo ayuu ka diiday uu 3 sano iyo dhowr bilood la shaqeynayay xasan sheekh maxamuud sidoo ugu aqbalaya mid kale nin baahan ma aha xasan cali khayre haddaad ogtiin haddii kale lacagta ugu badan ee hotel jazeera lagu cuno lagu cabo xasan cali khayre bixi waligay waan ogaa haddana waan ku sheegaya dhaqdhaqaaqa shirarka iyo abaabulka mucaaradka madasha samata bixinta lacagta ay ku dhaqdhaqaaqaan xasan cali khayre bixi ma yihinin in adeerkii difaacaya ha u malaynin inaan anigu ilmaadeernimo xasan cali khayre aan ku difaacayo maya soomaalida qabiila maskaxda ka galay qofka aad ka hadlayso haddii aad ammaanto waxay u malaynayaan inaad isku qabiiltiin maya isku qabiil ma nihin laakiin xaqa dhabta ah xasan cali khayre waadkaas dhaqaale ahaan waa nin dhammaystiran hadday laaluush iyo baahi noqoto waa laga baahi badan yahay waana laga laaluush qaadasho badan yahay laakiin waxaan rabaa inaad runta ogaataan waa kula dhimanaya xasan cali khayre wuu kula dhaawacmaya mowqifkiisuna waa cad yahay marusadaa tahay madaxweyne noqon maysid inta lagu haysto waa intaas maxaa nala gudboon difaaca mudane xasan cali khayre anaa kuu sheegaya inaan difaacno waa midda keliya oo nalaga doonayo annaga oo ah soomaali khayre aduu ku anfacaya anigoo anfacaya ummadda soomaaliyeed oo anfacaya qolada marka qabiilaysan oo weliba lacag loogu shubtay in xasan cali khayre ay carqaladeeyaan waxaan leeyahay khayre waa jirayaa waana siyaasi waa una jiri doonaa xagxagasha waxba looga qaadi maayo bal wixii ku soo kordha duulaanka murusada nacaybka ah ee lagu soo qaaday xasan cali khayre insha allah waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda oo aad ka daawan doonto facebookiga pageka cabdullaahi balwaan insha allah waxaan arkaya siyaasiyiin reer puntland qoladii u shaqaynaysa xasan sheekh oo soo saaraya war saxaafadeed maxay leeyihiin puntland cusub aan dhisaynaa ko puntlandta hadda jirta waa la burburinayaa haye xalka dhabta ah ee maanta waa in puntland la burburiyaa new puntland la dhisaa waa wejigii labaad duulaankii xasan sheekh ee daarood nacaybka jubbaland cusubaan ka adkaanay soo maa hadda waxa weeye puntland cusub dagaalkii gedo een xasan gurgurta uga soo adkaanay hadda xasan shire abgaalu usoo dhiibay waxaa tahay majeerteen waxaa tahay ciise maxamuud garow adaa iskale puntland la soo dagaal baraha bulshada ayaa loo qaybiyey war saxaafadeedkaasi waxaana laga dhaadhicinayaa qof kasta oo reer puntland inuu qayb ka noqdo puntland in la burburiyo puntland cusub la dhiso waa aqli kii ugu liitay waay abid aqli aan maqlo kan ugu liito waay maamul noo dhisanaan duminaynaa si aan guul u gaarno maamul cusub aan dhisanaynaa goorma xilligan ayaan burburinaynaa haye waxaan rabnaa inaan maamul cusub dhisno haye xalka puntland iyo badbaadada puntland waxay ku jirtaa in aynu new puntland dhisno waxay noqon doonaan kuwa u fashilma sida aan u fashilinay new jubbaland waxaan ballan qaadayaa warbaahintayda pagekayga cabdullaahi balwaan iyo weliba channelkayga youtube-ka cabdullaahi balwaanba anigu ma qarsado fikirkayga difaaca qadiyadda dhabta ah waa qofka maanta difaacaya puntland sababtoo puntland waa aas-aasihii dowladnimada soomaaliya aas-aaska dowladnimadu waxay ku xiran tahay puntland haddaan markhaati ka noqono indhaha ka daawano puntland meel lagu burburinayo micnaheedu wuxuu noqonayaa annagoo markhaati ka noqonay baaba'a soomaaliyeed marka dhammaan waxaan leenahay bal haddii qoladan xasan shire abgaala amba lacag ha ku shubto xagga baraha bulshada ay qaylo wax ku qaadayaan derbiga adag ee puntland ee garab istaaga buuxa ayaan anigu halkan u fadhiyaa garab istaag puntland muuqaalka sheergare garab istaag puntland fikirka kor u qaadista